halkani waa Garowe waxa ay xudun u tahay Puntland oo kamid ah meelaha isu socodka dhulku sahlan yahay Soomaaliya shirkadaha sida middan rikaabka u kala gudbiya gudaha Puntland waa adeegyada hirgalay 5 sano ee ugu dambeysay subaxa aanu la safrayno ayaanu muuqaalkan ka qaadnay xafiiska shirkadda Subar annagu waa ballansanayn laakiin dadka tagaya qaar ayaa soo wacay lambar gaaban kuwana boosaska waxa ay ka soo dalbadeen ab shirkadu leedahay oo Play Store-ka lagala soo dego taasi la yaab ma leh marka loo eego halka tiknoolajiyadu marayso waa si horumar jiilashii hore aan heleelin shirkadu app bay ku shaqeysaa app la dhaho Bravo appkaas waxa la soo gelinayaa baabuurkii ka hor intuusan bixin tusaale ahaan casarkii oo kale la soo gelinayaa casarkii hadii la soo geliyo subaxii baabuurka birimada bixilaha suntada bixilaha tarsada bixilaha waa ku jira qof walba si online ahaan tigidhku uga jaranaya marka waxa la hubaa dareewalkii kaxayn lahaa inuu joogo baabuurkii inuu badqabkiisa u diyaarsan yahay una diyaarsan yahay inuu safar galo Boosaaso iyo Garowe oo aan ka tagayno waxa ay isu jiraan in ka badan 440 kilomitir si aan qaboonada u dhaqaaqno qof walba waxa uu hubsaday kursigiisa oo uu ku aqoonsanayo nambarka ugu qoran tigidhka waa 8 subaxnimo goobaha ganacsiga ku yaal geeska magaalada Garowe ayaa jid mar laga sii iibsaday kadibna waxaanu cagta saaray wadada muddo waxa lagu jiraa nugaal dooxooyinkan oo marka ay doog yihiin indhaha deeq jiray maalintaas waa jilaal jir sugaya xooluhu kama hayaamin dhulkaas oo waxa lagu jiraa cijeedaalis dayr kalkeedii joogta cisaybna waxa uu ka muuqdaa maalintaas cirka markaan dhaafnay degmada Dangorayo iyo dhowr deegaan oo hoos yimaada waxaanu u gudubnay Karkaar Qardhoona waxa ay caasimad u tahay gobolkaasi waa 230 kilomitir inta Boosaaso ka harsan waxaana la sii buuxshay taangiyadii gawaarida kadibna waxa aanu sii wadanay socodkayagii haddaanu marayno inta u dhaxaysa Sheerbi iyo Qardho ayaanu isdaafnay gaadiid kale oo Subar ah waa kuwii Boosaaso ka soo baxay saaka oo Garowe u dhalandhoolaya halkani waa alxamdulillah deegaan ka tirsan gobolka Karkaar ee Puntland waxa jira meherado socotada u furan oo wax laga cuno dhowr magaalo oo ku yaal laamiga inta u dhaxaysa Boosaaso ilaa Gaalkacyo dadka aanu la hadalay waxa kamid ah ajaanib adeega shirkadani qanciyay This company is very good, Super Transport Logistics. shirkadda Subar waa shirkad aad u wanaagsan waxaan raacayay muddo aan ugu kala safrayay magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe waxay leeyihiin internet bilaash ah baabuurku waa mid qabow oo safarkeedu waa mid degan oo ammaan ah aadna la isugu halayn karo darwaleel xirfad leh ayaa u shaqeeya Subar waxaan dhihi lahaa dhammaan dadweynaha ay soo raaca oo isticmaala shirkadda Subar waa shirkad aad u wanaagsan waana aamin waxaad ka helaysaa kursi si raaxo leh aad ugu safrayso qaboojiye internet lacag la'aan ah qof walba waxaan kula talinayaa inuu ku safro shirkaddan oo aad ku raacayso qiimaha ugu jaban waxaan isleeyahay waa shirkad aad u wanaagsan tan cagaftu ilkaha kula jirto waxa ka shishaysa mid kale oo shaqo culus laga qabtay jidkan waxa uu dhisan yahay ku dhawaad 40 sano Soomaalidana waxa ka taageeray Talyaaniga markanse Puntland ayaa dhisaysa meelaha burburay injineerada ka shaqeynaya waa Puntland shaqaalaha ka shaqeynaya waa Puntland qalabka ka shaqeynaya waa Puntland ma hanti Talyaani iyo lacag Talyaani ma arrintaasuna waxa weeye waxa amaanteeda la dawladda Puntland oo mar walba diyaar u ah inay wixii dhaawacma ama dhibaato gaara markiiba ay gacan qabato
waxaan tan haddii la yidhaahdo way dhammaatay tiimku u guurayaan buundada kale oo iyadana la dhisi doono mustaqbalka dhow. burburku kuma eka buundooyinkaas la dayactirayo waxaa jira meelo badan oo gawaaridu ka degto haddii aad safar ku maraysid waddadanna waa hubaal inaad aragtid gaadiid qalliban. darawalladu waxa ay sheegayaan inay sababtay burburka meelo ka mida waddada. marka la soo tago Indoora oo la soo gaaro Laasada Waco iyo Juurile ayaanu soo galay dhul rooban waa xilligii aanu safraynay. halkan ilaa Boosaaso waxaanu ku soconnay xilli galaba. safarkayagii ugu horreeyay aan shirkaddan Super ku safarro aniga iyo Maxamuud Jookar casar gaaban 4 galabnimo ayaanu soo galnay Boosaaso. inta joogtada ugu safarta waxa ay noo sheegeen waxa ay ku doorteen shirkaddan. anigu waxaan ahay nin ganacsada oo ka shaqaysta ilaa Boosaaso Garowe Gaalkacyo badanaa wiigii ilaa 2 jeer 3 jeer baan raacaa. waxaan ku doortay oo kaliya waxa waaye waa kuraasdiisu ma aha kuraasda shaxaaday waa kuraasidii ay u soo degeena dadku waa kala fog yahay dad dusha iska saarsaaran maaha. waqtiga qofka waqtiga ku xisaabtamayana baabuur aad u dheeraysa oo yacni waqtiga ilaalisa weeye. adigida waxa ka mid ah adigoo xaafadada jooga inaad dalban karto muxuu ahaa gaariga sidoo kale aad lacagta mataqaanaa adoo gurigaaga jooga aad bixin karto adoo gurigaaga jooga lambarka kursiga aad ku leedahay gaariga raacayso lagu sheegi karo mataqaanaa sidoo kale adeegyada aan aad ugu gudo waxa ka mid ah in mataqaanaa timetable ay leeyihiin oo sidoo kale mataqaanaa gaari qaybta koowaad oo kale ay 6 baxaan ama qaybta mataqaanaa ay ku xigtaan sidoo kale ay 7 baxaan safarkoodu aanu inaba aanu geli karin wax gaaba ama gaabisa.